iyadoo ay kordhayso faafidda cudurka COVID-19 coronavirus isla markaana ay u geeriyoodeen dad aad u fara badan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo ganacsiga guud gaar ahaan ganacsiga qudaarta noocyadeeda kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho oo xilligan laga dareemayo sare u kac aad u baahsan cudurka COVID-19 coronavirus ayaa waxa uu saameeyay nolosha dadka shacabka ah ee danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho iyadoo ay sheegeen ganacsatada qudaarta inuu saameyn ku yeeshay habsami u socodka ka ganacsiga qudaarta noocyadeeda kala duwan Cabdulqaadir Ibraahim Cali oo kamid ah ganacsatada qudaarta ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 coronavirus ka ganacsiga qudaarta anaga waxa noogu daran maciishadii ay kor u kacday basashii oo kale baradhadii oo kale dalagii oo sii yaraahay basasha hadda wadanka waxa laga keenaa Yemen waxa lagu soo dejiyaa boosaas laga soo raraa asa Muqdisho say ku imaataa taraagas dheer ay soo martaa hada qiimii lagu keeno xaq lagu soo qaado bakaara laga soo qaado waxa lagu soo qaadaa $1 iyo bar ayaa lagu soo qaadaa horta waxa laga jiray wax $1 dhammaan waxaan u soo baa cudurkana u soo baa wax walba sabab cudurkana u soo baa dadkii hore waxa markii xilliga soonka la gaaro badeecadii way kala soo jirtay inkastoo idoo qaale ay tahay magaalo lacag la heli jiray hadda wixii dhan way xirmeen badeecadii oo qaali noqotay magaalada lacag la'aan ka jirto waa shidadaas cudurkeena u soo waxa soo dhammaan waxaan horta bogaadin hambal u jeeda dawladda waxaan ka codsanaynaa wadooyinkan horta noogu weyn wadadan oo ka timaada afgooy xamar isku xirta in wadadii horta noo hagaajiyaan oo laami noo saaraan oo nadiifiyaan oo wadooyinkan kale oo burbursan oo inay wax ka qabtaan oo isbedel ay wadanka ay ku sameeyaan aan ka codsanay ilaahay ugu garab galo ilaahay waxaan u tugeynaa inay garab saas ay yeelaan wadadaas noo hagaajiyaan oo waa dawladeena ilaahay dawladii jirta Allah nooga dhigo waxaan kaloo ka codsanaa inay wadooyinkaas noo habeeyaan ganacsadana waxaan ka codsanaa inay dadkan shacbiga ay u talo oo naxariistaan Faadumo Cali Barrow oo kamid ahayd haweenkii aan kula kulmay suuqa qudaarta degmada Xamarweyne ayaa sheegtay in sare u kaca ku yimid qudaarta uu sababay cudurka COVID-19 coronavirus qudaarta waa qaali basasha waa qaali baradhada waa qaali yaanyada waa qaali asraatada waa qaali qudaarta oo dhan waa wada qaali hadaa idinku ugu qaaliseen halkee laga soo saaraa qudaarta waayahay يا qudaarta waa qaali dadka lacag iska ma haystaan ay coronavirus ajral yiri wadamku waxay xirmeen dadka lacag ma haystaan macaamiil ma haystaan dadku waxay si jiraan wax ma haystaan ay qudaarta lagu qaaliyay anaga inta ka keenayna lacag intaana la sheegin cudurka qudaartan way ceelnatay marka cudurka la sheegay qudaarta way nagu qacday waa lagu wada qacday Muuse Cusmaan Abtaw telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho